maalintii ugu horreysay ee ay gabadhu timid guriga waalidkeed korsaday waxay soo qaadatay qalab koronto oo qodaya kadibna waxay ka furfurtay albaabka qolka jiifka ee walaalkeed. waalidkii korsaday ma xanaaqin. halkii ay ka cadhoon lahaayeen waxay u diyaariyeen hadiyado aad u badan sababtu waxay ahayd in wiilkooda uu qabo xaalad uu aad u aamusan yahay. ma hadlo xitaa albaabka qolka jiifkiisana ma furo. gabadhu si xarunta agoonta waxaa looga yaqaanay inay hadal badan tahay. maalin kasta waxay lahayd sheekooyin iyo hadal aan dhammaanayn. lamaanaha waxay u baahnaayeen gabadh sidaas u hadal badan si ay ula ciyaarto wiilkooda. sidaas darteed ayay u korsadeen oo guriga u keeneen. gabadhu waxay isku dayday siyaabo badan si ay u furto albaabka walaalkeed. markii ay furtay ayay gudaha u gashay si ay ula hadasho. wiilkii yar wuxuu dib u socday tallaabo isagoo ka caraysan buuqa. ugu dambayn wuxuu ku cidhiidhiyey geeska qolka. markuu arkay inuusan meel kale u baxsan karin gabadhu waxay bilowday inay u sheegto sheekooyin. waxay uga sheekaysay nolosheeda xarunta agoonta. saacado badan ayay hadlaysay oo ma joojin. ugu dambayn wiilkii wuu ka daalay buuqa. wuu kacay oo albaabka ayuu ka cararay. gabadhiina isla markiiba way ka daba oroday. waalidkii korsaday aad bay ugu farxeen. tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee wiilkoodu iskiis uga soo baxo qolka jiifka. waxay ogaadeen in dadaalka gabadhu sabab u yahay. hooyada korsatay waxay go'aansatay inay abaalmarin siiso gabadha. waxay rabtay inay gabadhu gurigaas ku noolaato mar walba. muddo yar kadib shaqaalihii guriga waxay qolka gabadha geeyeen hadiyado badan. gabadhu aad bay ugu faraxday markay aragtay. waxay istiri waa inaan si kasii badan u dadaalaa si walaalkay u hadlo. kadib waxay hadiyadihii u qaaday qolka wiilka yar iyadoo ula kac u tusaysa hadiyadaha cusub ee hooyadood soo iibisay. markay aragtay in wiilku wax dareen ah muujinayn waxay bilowday inay hadiyadaha kala soo saarto. wiilkii yar markaas wuu walaacay oo murugooday. dhanka kale hooyada korsatay waxay shaqaalaha weydiisay haddii hadiyaduhu loogu talagalay gabadha. markaas ayay ogaadeen in gabadhu dhammaan hadiyadihii siisay wiilka yar. waxay u maleeyeen in hadiyaduhu aysan ku habboonayn gabadha. sidaas darteed waxay go'aansadeen inay suuqa u kaxeeyaan si ay ugu soo iibiyaan kuwa cusub. markaas ayay gabadhu jaranjarada ka soo degtay. hooyada korsatay waxay weydiisay haddii ay rabto inay suuqa tagto. gabadhu oo ku kortay xarunta agoonta oo aan weligeed wax soo iibsan isla markiiba way ogolaatay. laakiin intay baxayeen ayay aragtay walaalkeed oo keligiis jaranjarada taagan. wuxuu u ekaa mid aad u cidlo ah. gabadhu waxay qiyaastay in walaalkeed uu sidoo kale doonayo inuu u noolaado sida dadka kale. markaas ayay waalidkeed korsaday u sheegtay inaysan doonayn inay suuqa tagto. waxay rabtay inay guriga joogto oo la hadasho walaalkeed. intay sidaas tiri ayay dib ugu noqotay dabaqa sare. waalidkii korsaday aad bay uga ilmaysiiyeen arrintaas. waxay dareemeen in gabadhu tahay qof naxariis badan oo gaar ah. muddo yar kadib waxay go'aansadeen inay gabadha u diraan iskuul. gabadhu markii ugu horreysay waxay weydiisay haddii walaalkeed sidoo kale la aadi karo. waalidku markiiba jawaab ma siin. waxay ka cabsadeen in wiilkoodu ku argagaxo meel dad badan joogaan. laakiin gabadhu waxay tiri walaalkeed waa inuu isku dayaa inuu la falgalo carruurta kale. waxaa laga yaabaa inay ka caawiso inuu si tartiib ah isu beddelo. markii ay hadalkaas maqleen waalidkii waxay dareemeen inay laga yaabo inay isku dayaan inay wiilkooda iskuul geeyaan. maalintii xigtay gabadha iyo walaalkeed waxay wada tageen iskuulka. markay aragtay dhismaha weyn ee iskuulka gabadhu aad bay u faraxday. laakiin walaalkeed gadaasheeda ayuu socday isagoo gariiraya. markay dareentay cabsiisa gabadhu gacanta ayay qabatay si uusan dib ugu cararin guriga. markaas ayaa carruur kale oo dhib badan jidka u galeen. waxay ku yidhaahdeen wiilka yar ma hadlo. isla markiiba gacmihiisa way qabowdeen cabsi darteed. carruur kale oo badan ayaa ku soo biiray waxayna sii wadeen inay ku jeesjeesaan wiilka. markaas ayay gabadhu fahamtay sababta walaalkeed u diiday inuu iskuulka yimaado.